بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar oo ku hambalyeynaya dadaalkiisa uu doonayo in dadka gabooyaha uu kula simayo dadka kale ee Soomaalida ee degan wadanka Ethiopia dadku inay sinaadaan oo qof walba xuquuqdiisa helo oo la kala hooseyn oo la kala sareyn oo la sinaado waa arrin muhiim ah marka madaxweynuhu tallaabo wanaagsan buu qaaday dhinaca wanaagsan uu qaaday waxaan ka rajeynayaa dadaalka inuu sii wado runtiina anigu waan ku hambalyeynaya madaxda kale reer Somaliland iyo Soomaaliya inta Soomaaliya degto iyagana sidaas la mid ah ayaan uga codsan lahaa in beelaha gabooyaha iyo beelaha kale dadka la liido ama hoos loo dhigo in la awood la siiyo oo la soo gaarsiiyo heer ay dadka kale kula sinaadaan haddii la rabo in wax la noqdo waa in la isaqbalaa waa in la kala sareyn waa in la sinaadaa Soomaalidii sharafta lahayd waxa baabiisay waxa weeye markii waxba la isoo ogolaan waayay markii la isaqbali waayay markii la kala sareeyay marka in aqligu qofkii sinjiga Soomaali ka in aqligu ku soo noqdo oo dadku sinaadaan oo qof walba xuquuqdiisa helo qof walba Soomaaliyeed cadaalad buu baahi doonaya haddana wuxuu rabaa in reerkiisa ama qabiilkiisa uu qabiilooyinka kale oo dhan ka sareeyo marka aqligan qabiilka ee lagu kala sareynayana aqli wanaagsan maaha marka anaga ololahayga aan kaga soo horjeedna qabiiladan wuxuu daarayay in la helo sinaan iyo cadaalad marka sinaanshaha uu dadka kula simayo gabooyaha ummadda inteeda kale madaxweynaha waan ku hambalyeynaya waan soo dhaweynayaa waxaana leeyahay runtii sii dadaal una ogolow inay noqoto cashar wax laga barto oo dadka kale ee Soomaaliyeedna ay wax ka bartaan Somaliland wallahi qofka soorta madaxa mas'uuliyad baa saaran adduunkana saasay ka tahay oo markaad madaxweyne tahay ee ummadda hogaaminayso dadka inta nugul ee hooseysa waa adeegtaa marka waa inaad ka fikirtaa intaas sida soo gaarsiin kartaa dadka intiisa kale dadku haday kala tagaan oo aad u kala tagaan oo la kala sareeyo marka maamulkaagu wuxuu ku faana ma hayo marka in mar walba adduunka waad aragtay adduunyada mar walba waxa tacab badan la geliyaa dadka hooseeya ayaa la soo qaadaa wax la baraa waliba bilaash wax lagu baraa in meelaha ay degaan la horumariyaa si dadka kale intiisa kale loo soo gaarsiiyo anigu waad ogtahay halkan wax inta ugu badan waxaan ka hadlaa xaafada Daami leeyahay oo tusaaleynta badan soo qaato reer Somaliland gaar ahaan maayarka caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Hargeysa xilka ugu weyn ee saaran maanta waxa weeye xaafada Daami leeyahay in la dhiso oo la soo gaarsiiyo xaafadaha kale Hargeysa si ilmaha yar halka ugu nool marka uu ogaado dawladani inay xilkeedii gudatay ugana fiicantay dawladii hore ee xilligii siyaad barro oo kale haddii laakiin ilmaha yar halka ku nool uu dareemo in uu yahay ilmo la dayacay oo waxay ahayd in loo qabta aan loo qaban oo xaafada Daamina ay saa u sii ekaato Hargeysina ma faani karto Soomaaliland ma faani karayso marka in tacab la geliyo wax badan loo huro Somaliland il gaara inay ku eegto marka dadka gabooyaha iyo xaafada ay degaanba iyaguna runtii iyaga laftigooduna hadalaalaan waayo marka sidan oo kale u kala daadato dadkani kuma yara faro meel walba way joogaan waa qabiilka Soomaaliyeed ee meel kasta dhulka Soomaalidu degtaad ka soo helayso laakiin mushkiladu waxa weeye iyaga laftoodu kala daadsan yihiin marka iyaguna dhexdooda inay sabaabulaan iscaawiyaan midoobaan meel uga soo wada jeedaan danahooda inay ka hadlaan oo codkooda kor u qaadaan iyagu aan isku mashquulin xuquuqda ka maqan siday u helayaan ay ku mashquulaan Cabdikariim muddo badan baad ka shaqaynaysaa dagaalka qabyaaladda arrinka madaxweynaha Soomaaliya uu sameeyay dadku isku dadeen in dadkan la qabsacay qabiilada kale ka guursadeen walaal horta anagu inta waa dadaalayna mana sii badnino anaga xukuumadihii tagay iyo kuwan joogaaba dadaalkan aan ummadda u hayno in dadka la mideeyo oo dadku midoobo oo qabyaaladii qurunka iska daayo taageero kaga ma helo balse mararka qaarkood waabay nagu dhibaanbo inaanu iyaga markaan qabyaalada ka hadlaynaanu iyaga ka hadlaynay moodaan marka anagu sida kiilka shanaad mana sii badnino madaxweyne u soo jeeday inuu qabyaalada wax ka qabto oo dadka la haybsooco ee la liido ee hoos loo dhigo ummadda kale inuu soo gaarsiin doonayo wali ma ana arag waanu si sugaynaa madaxweynaha cusub hadduu taariikhda gelayo waa fursad u banaan waana ka sugaynaa laakiin marka hore maana nasiib badnayn dadaalkaygu aniga wuxuu bilaabmay 2 sano iyo xogaa aniga walaaladayda kale xukuumaddii tan ka horeysay namay soo dhaweyn waxna lamay qaban anagun baa dadaalay dadaalkiina wali waa haynaa waa wadnaa tanna waa ka sugaynaa Somalilandna
cid uga baahi badan inay arrinta qabyaaladda suuliso oo ay wax ka qabato oo dooda ay ka furto ma jirto waayo waxaad moodaa qabyaaladii inay iyadoo udbahoodii iyo dhigaheediiba wadata inay Soomaaliland soo dhex degtay waxa qaldana waa qabyaaladu wadiga arkay waxa lagu wada hadlayo luuqadii xumayd ee 94 iyo 29 lagu wada hadlay reeraha ahayd ee siyaasadii xumayd ee qabiilka ku dhisnayd xaqdiga ku dhisnayd inay soo noqotay dibtaba wadiga arkaya marka Soomaaliland waxay u baahan tahay inay xukuumadda jirtaa waxay u baahan tahay inay tala qaran ka yeelato oo haddii ilaahay idinkeeda commission u madax bannaan la sameeyo oo markaasi ummadda wacyigeeda la dhiso oo la tuso sida aanay qabiilka iyo qarannimada isu qabanahayn haddii se wadadan reeraha ahee qoloqolada ahee siyaasaddan qabiilka ku dhisan iyo qabyaaladda dabada la sii hayo waa xigaya waxa weeye kubaddan qabyaaladda haddii lagu ciyaaro waa nin sidii kubad ololaysa yidhi waan ku ciyaaraya waan laalaadaya markaa dee markaad kubad ololaysa laadana dee waad gubanaysaa markaa Somaliland runtii waxay u baahan tahay inay dib isugu noqoto arrimahana wax ka qabato madaxweynahana wax kaga dayatade isba waa ka gartay isaguna inta insha Allah ka sii weyneeyo dadka walaalaha ah ee Soomaaliyeed ee kala gashanada Soomaalida Itoobiya daga hamideeyo oo ha walaaleeyo xuquuq siman ha siiyo yaa ma garanaysaa sida uu gabooyo xuquuqdooda ugu doonay hadii jiraan qaar kale oo hooseeyaan kuwaana kor ha soo qaado sharaf buu ka qaadi wanaag buu ka qaadi aakhirana mataqaana wuxuu ku heli wax wanaagsan Soomaaliland hadday wada lamida marto iyadana taariikh baa qori doonta ninka Soomaaliha jooga ama Soomaaliha jooga ama kala gashanada jooga والله ninka hogaamiye noqday ummadda mideeyay qabyaalada xun inaga ka adkaada taariikhda wuxuu ka gelayaa meel aan qof hogaamiye Soomaali hore uga gelin inta ay qabyaalada iyo sida Soomaalida loo maamulayo wada socdaana Soomaalida hoog iyo baaba iyo colaado barugu bushaareynaya waayo meel qabyaalada taalo waxa ku xiga waxa weeye qabiilooyinka isku yaaca oo isfahmi waaya oo nabadda iyo wada noolaanshaha marka ay dhibaato soo gaadho teed ugu dambaysa Cabdikariin ku madaxweynaha Soomaaliland marka habka ugu fudud oo qabyaalada ula dagaalami karo sida aragtadu kow horta qabyaalada hadda la doonayo laga adkaado hal qof baa ummadaha adduunka dhan bedelay horta isagu tusaalaha ku noqdo agtiisa iyo guriga madaxtooyada ummadda ka maamulayana guri ummadda u siman tahay oo dadkii reer Soomaaliland oo dhami ka wada shaqeynayaan wada joogaan ha ka dhigo hala yimaado xeelado iyo tabo waa xanuun waa aafo qaran uu ku wajahayo arrinta qabyaaladda uu mashquulsan yahay oo shaqooyin waaweyn oo baaxad weyn oo qaran baa u yaala laakiin wuxuu qaadi karaa talaabo uu ku samaynayo commission u madax bannaan oo uu magacawday dad uu isagu ku kalsoon yahay oo markaasi furo doodaha loo baahan yahay in laga furo qabyaaladdu arrinta qabyaaladdu maaha arrin maalin iyo 2 iyo 3 iyo sanad iyo ku joogsanaysa laakiin waxay u baahan tahay in doodaheeda imika la bilaabo cilmi baadhis la sameeyo bahashan sida looga adkaanayo imika way naga adkaatee oo way in lagdato iyada sareysay bahashan sida looga adkaanayo waa in maskax maal fara badan la sameeyaa marka cidii arrimaha u qaban lahayd cilmi baadhista u sameyn lahayd xafiiska arrimaha u qaabilsana waa inuu sameeyaa commission kala dagaalanka qabyaalada ka mudan Soomaaliland inay sameysataana ma jirto labada aafaqaadkii qabyaalada waa in si cilmiyeysan oo qaramaysan loo wajahay marka hal yimaado isagu siyaasadihii iyo hay'adihii ugu xil saaraa ee shaqada wax ka qaban lahaa isaguna tusaalaha ku noqdo oo wixii uu ekeysinayay inuu reer ama cid gaar dabada ku hayo ha ka fogaado in ummadoo dhan u dhaxeeya ummadoo dhan madaxweyne u ah aabihii ummadda ah cid waliba u siman tahay afcaashiisa laga arko hadalkiisa laga arko marka ummadda Soomaaliland markay arkaan madaxweynahoodiyo talaabooyinka wanaagsan qaadayo ummadda mideynayo isagu tusaale ku ah ummaduna way ku dayan doontaa madaxda laga didaa wixii wanaagsan wixii xunna madaxdu ma laga didaa madaxdu tusaalaha ku noqoto wanaaga iyo midnimada iyo qabyaalada dagaalanka su'aasha ugu dambaysa aan ku weydiiyo Cabdikariin Axmed Mooge madaxweyne cusub ayaa Soomaaliland loo doortay oo ka baxsan mawduucan ka baxsan ku weydiiyo madaxweyne cusub ayaa Soomaaliland loo doortay ilaa haatan sidoo wax u wado balka waran adigu siyaasi in badan siyaasadda ku soo jiray ayaa dahay sidoo wax u wada balseedo aragta horta anigu ma doonayo madaxweynahan in laga shaqeeyo inuu ku fo waayo waxaan aaminsanahay Soomaaliland 5 sano soo socda hadii wax wanaajisan weydo warwar badan baa haya marka in la taageero la caawiyo inuu guuleysto laga shaqeeyo waan taageersanay sidii taas ku imanaysa madaxweynuhu waa tala badsadaa waa inuu qarankan u tala badsadaa imika inta dhacdhacday hore hadduu keligii tashadayna taladaha ku noqdo haddii lala taliyeyna uu tala xumaystay
waayo dadkii waxa imika inta warqada ka soo baxday dadkii cid raaliya weli ma hayno dadku way qawadsan yihiin marka dee madaxweynuhu aad ha u tala badsado waxa ka soo baxay ha iska hubiyo dad wanaagsan oo la taliyaal wanaagsan ha samaysto oo ilaahay garanaya oo dalkan jecel oo markay la talinayaan aan cid gaar iyo dan gaara wadan ee doonaya inay Soomaaliland wanaagsanaato qurux badnaato ummadda Soomaaliland oo dhan ha lagala shaqeeyo madaxweynahaas inuu guuleysto hadduu guul dareysto Soomaaliland dhan baa guul dareysanaysa waqtiga iyo fursadaynu haysanaana way yartahay 26 sano inuu soo kaca ku fiin 5 sano wixii ka dambeeya u malayn ma ummadan daalka ku sii badanaya marka inay marka waxay ummadan u baahan tahay midnimo waxay u baahan tahay gamcays qabsato waxay u baahan tahay xooggeeda inay meel isugu geysay sidii Soomaaliland u guuleysan lahayd inay Soomaaliland guuleystaan madaxweynahaas inuu guuleystay ku xiran tahay madaxweynuhu ha tala badsado ummadiisa ha dhageysto hogaamiye aan tala qadan hogaamiye ma ha tala badsado ha rugrogo arrimaha dadka la talinaya dad wanaagsan oo lagu majirto wanaag iyo samatalisnimo ha noqdaan kuwa ummadda kala qoqoba ee kala kaxeeya hadduu la taliyaal ka dhigto ummad isku tuli maayaan way kala kaxayno marka insha Allah taala inuu guuleysto waan jecelahay intan imaka la qawadsan yahayna insha Allah uu qawatiriyo dadka waxa uu intaan ku daraya dadka wax tabanaya Soomaaliland cirab badan baa wax tabanaysa dadka wax tabanaya inuu tabashadooda aad u dhageysto wax badan oo saayida iyaga siiyo raali gelintooda tacab iyo waqti geliyo si Soomaaliland isu soo wadato nin wax tabanaya hadii loo joojin waayo la dhageysan waayo tabashadu way sii badan marka dambana markuu tawdo qofku kugu qarxaya marka dadka wax tabanaya aan waxaan aaminsan in la dhageysto in xariga loo dabciyo xitaa waxaan xaq u lahayn in la siiyo raali baan ka si Soomaaliland isu sii wadato oo inagu mar walba waxaan doonaynaa in intii Soomaali meel wada joogtaaba inay isaqbasho oo mid ahaato oo wax isaga tagto oo wax isa siiso maalinba ninka oo yara xogaa waxba iga maqan waxba kama qabno taadu wixiisa haysto oo wali hadana aan raali lahayn waxba kuma jabno hadii ummadda lagu kala furto la kaayagana ku darso saynu mid u ahaano saynu guuleysano si Soomaaliland halkay u socotay u gaadho